الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشي dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inaga la socdo. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway oo aalaan u taagan sidii ay bulshadeeda uga wacyigeliyeen arrimahooda muhiimka ah si loo dhiso garaadkooda qofka qoyska iyo qarankaba. haddaba maanta waxaynu halkan kaga doodi doonaa oo aynu ku haynaa barnaamij doodaha ka oo ku saabsan ama ciwaankiisu uu yahay sidee annagoo kala dow iyo danba ah uga wada shaqayn karnaa danta guud. موضوع مهم oo aan si cilmi aqli aqeedo iyo dhaqanka ku salaysan uga doodi doono si aan ugu kaydino jiilasha dambe oo ay uga faa'iideystaan. ujeedka barnaamijkan iyo Somali Voice waxa uu yahay in aan daraasayn iyo cilmi baaris ku sameeyno dhibaatooyinka haysta bulshada Soomaaliyeed si loogu helo xal waara. haddaba waxa dooda inaga qayb qaadan doona oo goobta in lagu la sugan oday waaye arag ah ee dhaqayaqaan ah sugayahan ah Abdurrahman Ziyo kusoo madasha sidoo kale inagula sugan Sheekh Abdul Ahmed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ahna imaamka masjidka muslimiinta magaalada Beerka kusoo madasha kale inagula sugan Dr. Abdul Qadir oo kamid ah macallimiinta aqoon-yahanada iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada kusoo madasha waxa kale dooda inaga qayb qaadan doona منع عمر أو كم من هؤلاء الصوماليين أحنا أقوياء كشقيسو الرماها بالشدة يهود مريدودا وسودو مركله. أقرأ قلت إنه قول سؤال حسب بير أو كم من سياسيين الصوماليين يكون مثلا قولها ديجان كذلك النرويج كانت تسن حزب عجارا وحللها كسودو مرشة. وحقا ضبط أن قال قاعدة دونه أقوياء إبراهيم أو كم من أقوياء هذا وحكوا بحثي كان صباح جامعة النرويج مركله كسودو مرشة. sidoo kale waxa goobta in lagu sugan oo fikirkooda iyo aragtidooda nala wadaagi doona qoyahanada kala ah Abdullaahi Ducaale iyo Xasan kusoo dhawaada madasha Somali Voice in Norway. Soomaaliyeed odayaasha waxa uu siiyay door muhiim ah taasoo ay ku mutaysay qadarin iyo tixgelin iyo inay ka shaqeeyaan gooyaan garta bulshadooda. waxa ay Soomaaliya markii la joogay ka muuqdaan bulshada oo ay ku leeyihiin kaalin dhexdhexaadin isu keenin iyo mudnaan ay bulshada uga dhex muuqdaan. markii qurbaha la yimid galbeedka ama Yurub ama sidoo kale aan u soo daadegay Norway odayaashii Soomaaliyeed kaalintoodii kama soo baxaan mana ka muuqdaan. maxaa sababay ma systemka ka jira galbeedka ama Yurub ama Norway ayaa hoos u dhigay kaalintoodii mise iyaga ayaa guryaha fadhiistay oo doorkoodii gabay. waxaan weydiinayaa oday Soomaaliyeed sugayahan Abdurrahman Ziyo kusoo dhawo miisaan baan lahayn waa madaxeena kor u jiray lugeena hoos jiray hadda laakiin odayadii meesha uu hoosisa la geeyay miisaanka uu soo kale uu soo rogay marka halkaas ay ka gaabinay ma garat waana nidaamka halkan yaala wamaasta aan wada ogsoonahay culimadii hore waxa ay ahaayeen iyaga oo kala fikir iyo aragti iyo mowqif duwan kuwa is ixtiraamo oo isqadariya oo mudnaan iyo tixgelin midba midka kale uu hayo. waxayna ku xusi karnaa Imaam Shaafici oo ah imaamka ay madhabkiisa haysano iyo Imaam Abu Xaniifa oo waxay kala qabeen laba fikir oo kala duwan oo iska soo horjeeda marka ay timaado sida kamada ay isku taabtaan ragga iyo dumarka oo Imaam Shaafici waxa uu ku tagay in weysadaasi ay burtay halka Imaam Abu Xaniifana uu ku tagay in weysadaas aysan burin. haddana labaduba tixgelin mudnaan iyo qadarin ayay sii jireen oo qofba qofka kale kama saari jirin diinta mana ka xigsan jirin. hay'ashee waayadan daba waxaynu aragnaa culimadii oo is haysata isqaqabsanayso oo kala fikir duwan oo xitaa mararka qaar diinta iska xigsanayo oo ay dhacdada mararka qaar in ay qaarkood diinta iska saaraan. maxaa isbedelay maxayse tahay cilada culimadii naga gashay? kusoo dhawow Sheekh Abdul Ahmed. dadku bani aadam kala duwanaanshiyo waa qayb nolosha ka mid ah. waxaan xasuustaa mar jaamacadda Nasrullah joognay baa nin macallin ah wuxuu noo keenay Maghreb erey bixin cajiib oo la dhaho inay fallaska dadku wayna kala duwan yihiin wada jirna waa laga shaqeynaya waxa lagu wada jira kala duwanaanshaha waxa ku macnaheeyo marka kala duwanaanshaha wada jirka kala duwanaanshaha ku macnaheeyo malaha waxaan isleeyahay in nolosha waligeedba kala duwanaanshuhu jiray aragtida keenaysa qofka aqligiisa keenaya duruufta nololeed baa keenaysa aqoontiisa keenaysa innaga dhibaatooyinkeena haysta qayb ka mid ah si guudna waxaan uga mid nahay run ahaantii dunida ee soo wada baaba'day marka oo
dowladihii ay siyaasadeynayaan diintii walba ninkii meel joogaba uu koox uu rabo in u hadasho uu raadsanayo taasi waxay keentay muslimiintu runaantii baaba ku dhacay ee faraha badan leh inay qayb ka noqdaan marka si guud waxay nooga wada xumaadaan odhanayaa dantii guuda kusoo noqone sarta ay ka qurunsan tahay dowlad la-aantu waxay keentay majaalis culimo oo lagu heshiisaya marjiciyada oo dadka kala hagi kara in la waayo halbeeg dadka lagu eego oo qofkani ma culima mise ma aha qof walba inuu iminka waa waxyaabaha iska furanee aanantii tallada aanan la ilaalin weeyaan iminka halkan oo kale dhakhtar haddaad sheegato waa lagu qabanayaa Norway laakiin haddaan idhaaho sheekh baan ahay waa iska furan tahay cid kuu diidi kartaa ma jirto dee dadkaa laakiin laga rabaa dadkaa kala garanaya dadkee dadka u adeegay dadkee dadkan dhaqankooga iyo bulshadan iyo hawsha oo nolosheeda wax ka qabanaya dee wixii intaa khilaafsanna dadku iyagaa dadka culimo ka dhiga ama aan ka dhiga iyagaa laga rabaa inay yidhaahaan maya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Norway kala tirsan xisbiyada kala duwan ee Norway ee siyaasadda noogu jiro sida aan wada ogsoonahay siyaasiga waxa uu ka soo baxaa xisbi marka koowaad waa inuu daacad u noqdaa xisbigiisa oo uu danaha xisbigiisa ka shaqeeya marka labaadna waa inuu daacad u noqdaa dowladda uu ka tirsan yahay oo uu danaha Norway ka shaqeeya midda saddexaadna waxa ay tahay inuu daacad u noqdaa uu ka shaqeeyo danaha Soomaaliyeed maadaama uu Soomaali yahay haddaba sidee arrintaa isku waafaqi kartaa oo idinkugu suurta gashaa inaad isku waafajisaan maadaama mararka qaar ay dhacdo in ay iska hor timaado danaha Soomaalida iyo danaha xisbiga iyo danaha dowladda marka ay timaado xaq dhaqan xaq diin iyo xaq arrimo kalaba sidee u xalisaan waxaan kusoo dhaweynayaa siyaasi xasan bile siyaasadda galbeedka gaar ahaan dalkan hadda aan joogno waa mid ku dhisan iska wada qabso marka koowaad aasaaskooda iska wada qabo weeye marka labaad shakhsiga saa go-aanka iska leh inkastoo xisbigu uu weli xoog leeyahay oo siyaasaddu soo shaqeynayso haddana ma jirto cid adiga kugu qasbayso wax adiga aad rabin samayso sababtoo ah dimuqraadiyadda macnaheeda ayaa saas ah marka anigu haddaan u arko tusaale ahaan in qodobkani uu lid ku yahay baardiga aniga aan wakiilka ka ahay oo aniga shakhsiyadii dadkaiga kasoo horjeedo qasabiguma aha inaan doorto oo aqbalo qasabiguma ah xisbigayga oo dhan hadduu aqbalo waxaan oran karaa anigu kan iyo banaanka ka istaagi karaa hooyooyinka Soomaaliyeed waa lafdhabarka iyo tiirka uu ku taagan yahay qoyska Soomaaliyeed haddii ay dalkii hooyo joogaan iyo haddii qurbihii la joogaan haddaba haddii hooyooyinka Soomaaliyeed aysan u suurtagelin in ay xakameeyaan odayaashooda oo ay isku keenaan kana shaqeeyaan sidii odayaashu ay dan ummadeed oo midaysan uga shaqeyn lahaayeen idinka hortaagan in aad soo saartaan ubad kuna barbaarisaan wadajirka midnimada isku duubnida iyo hogaamiyaal waxtara waxna u qabta bulshada Soomaaliyeed kusoo dhawow muno cumar waa sax waa lafdhabarka nolosha iskuma haysataas laakiin odayga dee markuu wax soo qasayo horta islaanta kale ma tashto dhibaatada haysato Soomaalida waa taas islaanta haday tiraado odayga hor istaag wuxuu leeyahay waxaas adiga wax kaama gelinay sheekadan qabiil ay u taalaay adiga dumar waa maxaa dhiri gabadh ninkii guursatay ku tooltahay oo adiga arrimahaaniit wax kaama qusayaan waa sheekada saas way fiican tahay in caruurta hooyooyinka soo saaraan caruur waxtar leh oo kabaalkiseerta ah way jiraan way badan yihiin laakiin qabiilkii aan wada sababtoo cunugaaga hadda si walba u tarbiyeyso oo maxay adiga meel gaarsiisid tolkiisa aad jiidinayo waxa leeyahay reer hebelaatahe reerkaaga meesha ama way ku jabeen ama way ku liibaaneen ha ka harin dhibaatadan haysato waa taas odayaashan aan ku noqonayaa qabiilka inta naga deysaan sheekada ha loo daayo dhalinyarada hadda soo baxday iyo islaamaha markaas wax way noo hagaagayaan waxaan ku noolahay dal horumaray dalkaasoo aanan qof ama keli waxna laysaga maqal taasoo qasabtay in ummado badan oo dalka yimid ay samaystaan ururada kala duwan waxaan dhihi karaa Soomaalidu waxa ay ka mid tahay bulshooyinka yimid Norway kuwooda ugu ururada badan haddana tirada ururada baaxadda leh ee badan iyo tayadooda waa kaaf iyo kalbeeri halkee ciladu ku jirtaa waxaan su'aashaas weydiinayaa Cabdiqaadir ama Cabdul oo arrimaha ururada ka shaqeeya kusoo dhawow ugu horeyn waxaan jeclahay horta inaan fursad uga faa'iidaystay inaan uga mahadceliyo Shiina iyo tiimkiisa SBN doodan wanaagsan ee noo soo diyaariyeen aan sidoo kale jeclahay inaan baart uga mahadceliyo dadka igala qayb qaadanaya waxay wadan ay caadi ka tahay ururo
marka anigu ma haysto ururada oo batay in ay wax loo qaban waayey laakiin ururada laftooda ayaa u baahan in ay su-aal isweydiiyaan laakiin ururada inay bataan keligeed ma aha cillad oo maaragtay hor istaagi karta in wax la qabto marka anigu waxay la tahay dhowr qodob in hoosta laga xariiqo waa muhiim si maaragtay wax loo qabto sababtoo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye ururada badnaanshahoodana maaha yaraanshahoodana maaha laakiin waxqabadkii iyo shaqadii u baa muhiima marka waxay ila tahay horta in dood furan la helo hadda doodan aan maanta ku jirno oo kaleeto waxay keenaysaa inay irido badan ay dadka u furto maaragtay in waxqabadkii u bato waxaa kaloo muhiima iyadana in la fahmo ama la aqoonsado meelaha la ysaga dhow yahay ama meelaha la yskaga mid yahay oo danuhu ay iskaga imaanayaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed sida kuwooda qurbaha ama galbeedka ku dhaqan ee wax ku bartay qaarkoodna ay wax ka dhigaan jaamacadaha ugu waaweyn dunida soo la saaraan hogaamiyada halkan aynu ku noolahay ee horumaray marka ay bulshadooda soo dhex galaan maxaa suuqiya oo hoos u dhiga oo ay ugu hadlaan wax aan ka suroobin aqoon-yahanka haddaan kala qaadno oo aan u kala qaadno qurbaha iyo wadankii minaha wadankii camal mithaal dee haddaad aqoon-yahan tahay oo aad ideas la tagtid isbedel maaragtay bulshada kusoo kordhin karaya dee waxaan isleeyahay de inta badan siyaasiyiinta meesha joogta kaa qaadan maayaan kaa dhagaysan maayaan waxaa lagu arki karayaa maaragtay qof qurbaha kusoo wareeray inaad tahay aqoon-yahanka Yurub joogana xoogaha de waxaan isleeyahay odayaashu iska soo tuurayeen maaragtay mas'uuliyadda laakiin waxaan isleeyahay dhaqankii macnaha wuxuu yiri Cabdiraxmaan Zii wala saaxiibkii wuxuu yiri de waa la dhalan rogay muu yiri ama de waa la dabakidiyay de macnaha awal odayaasha ugu sameeyay laakiin hadda odayaasha laakiin waxaan isleeyahay weli aqoon-yahaniintan doorkooda ciyaari karaan odayaashana doorkooda ciyaari karaan marka waxaan u baahannahay un keli platform oo de sidaan camal horta aqoon-yahaniinta way kala duwan yihiin qaar shahaadad ka soo samaystay iyo qaar oo maaragtay mufakiriin oo wax soo kordhin kara jira laakiin weli waxay u baahan yihiin challenge-yaal badan iska haysta ama caqabado badan oo ay kamid yihiin waqtiga dhaqaale maaragtay platform oo lagu doodo waxaa loo baahan yahay iyo hay'ado cilmi baaris ah oo maaragtay wax soo saar maaragtay aqoontaasna maaragtay dadkii hirgelin lahaa haday dawladda iyo haday urur tahayba in ayadana loo diyaariyo maaragtay hay'ad sii wada hore u sii wada su'aasha ugu horeysa aan idin weydiinayno waxa ay tahay oo aan doonayno in aan si qayaxan dadka ugu qeexdaan waa maxay danta guud ku soo dhawaada